hadduu ilaahay ku siiyey caafimaad wanaagsan waa inaad ilaahay mahadisaa sababtoo ah waxaa jira dad badan oo dhibaatooyin kala duwan ay haystaan dadkaas oo qaybtood cudurro la yaab leh ku dhaceen waxaa dadkaas ka mid ah wiilkan Hindiya ku dhashay oo la yiraahdo Deepak Bajwa ayaa waxa uu dhashay isaga oo leh lugo iyo gacmo dheeraad waxaana iska lahaa mataankiisa oo isaga ku dhaganaa laakiin aan dhamaystirnayn markaas waxa uu u ekaaday inuu wiilkaasi yar lixaad dheeraad ah leeyahay goortuu wiilkaasi 8 sano gaaray ayaa dhakhaatiirtii qalliin ku sameeyeen si uu uga gooyaan lugihii iyo gacmihii dheeraadka ahaa dadka qaybtood ayaa leh gacmo yaryar qayb kalena gacmo waaweyn laakiin wiilkan la dhaho Maxamed Kaliin ayaa wuxuu noqday qofka ugu gacmaha weyn caalamka wiilkan ayaa waxa haya cudur keenay inuu gacmihiisu ay joojin waayaan koritaankooda tani markii uu yaraa ayay gacmihiisu wadeen inay koraan oo ay weynaadaan taasoo wiilkan yarka ah uu dib badan kala kulmay xataa waxaa dhacday iskuulkii tuuladiisa ay u diidaan inuu dhigto sababtoo ah waxay dhaheen waxa uu baqdin gelinayaa ardayda kale gabadhan ayaa iyadu waxaa la dhahaa Mandy Sellers waxa ay ku dhalatay cudur keenay inay lugaheedu joojin waayaan inay koraan jirkeeda inteeda kale waa normal caadi ah laakiin lugaheeda ayaan joojin koritaankooda markii la cabiray lugaheeda kaliya ayaa noqday 100 kiilo taasoo keentay in gabadhan ay aad ugu adkaato socodkii oo uu dib ku noqdo ninkan ayaa waxaa la dhahaa Claudio de Oliveira waxa uu ku dhashay waddanka Brazil isaga oo kala goyshada jirkiisa qaybtood ay si khaldan isugu dhageen taasoo keentay inuu madaxiisa uu hoos u janjeero wiilkan goortuu dhashay ayaa dhakhaatiirtii waxa ay hooyadiis u soo jeediyeen inay disho oo ay cunno aysan siin inta uu ka dhimanayo laakiin hooyadiis ayaa aad uga soo horjeesatay hadda waa 40 jir xisaabiye ah mararka qaarkoodna waxa uu qabtaa lagjaro uu dadka ku boorinayo inay noloshooda wax ka bedelaan oo ay ka faa'iideystaan caafimaadka ay haystaan haddii ay ku cajabisay macluumaadkan fadlan subscribe samee waxaana ku dhufataa gambaleelka si ay ku soo gaadho macluumaad xiiso badan maalin walba